sidaynu ognahay haddaba Soomaaliyana waxay ka mid tahay dalalka ay sida weyn u saameysay isbeddelka cimiladu sida abaaro fatahaado iyo nabaad guur haddaba haddii aynu eegno meelaha qaar 13 sano ayaa ka soo wareegtay waqtigii shidista dhuxusha laga mamnuucay degmada Dhahar ee gobolka Sanaag Cali Maxamed waxa uu ka mid ahaa raggii xilligaasi iyagu duurka laga soo saaray iyagoo dhuxusha shidaya ka shaqeyn jiray waxa weeyaan dad badan oo halkaas isagana la jooga ayaa kala shaqeyn jiray xilligan imika hadda wuxuu ilaaliyaa deegaanka isagoo waraabinaya dhirta ku beeran jidadka degmada Dhahar Maxamed Xasan Dhalo ayaa warbixintan soo jeedinaya 2 sano ayuu jimco walba waraabinayay dhirtan ku beeran jidadka degmada Dhahar hawshanina Cali uma aha shaqo uu dhaqaale ka sameeyo subax yar baan waxaan ku dhaqaaqay boco dhir saarsaaran oo waxa la waradaga miyo waashi maxalay baa la galay baciidaan soo rogrogayo waxay ii geysay inaan isu taago nadaafadda gobolka Highland kuntan iyo 3 jirkan waxa uu la nool yahay xasuusta wixii dhacay 13 sano ka hor markii bulshada degmadani u guntadeen dhuxul joojin ka dhaqan gashay deegaankan habeenimada waa la sheegay in la soo baxayo laakiin ma aan maleynayna aniga in la iga bilaabayo arooryadii baa aniga ciidamadii iska sii qariyay oo waxaan siriyaan waxaan la xiran dhalinyarta Ethiopian bay u badnaayeen ama inta badan ba meesha Ethiopian bay ahaayeen marka duurkan sii galiyay moogta hadhow duurka yagaan waxa way ku qada karsanaynay ku quraac samaysanaynay hal mar baan waxaan arkay 2 gaari oo waaraadaayo bahalahaygii oo saa loo tuurtuuray kubihii dhuxusha laga shidi jiray waxa ka jira isbedel deegaan laakiin marna ma soo laabanayo geedkii jirida laga jaray waxaase dab ka nabad galay intii laga soo gaaray wuxuu ku yimi kacdoon dadweyne oo aan rag iyo dumar nin yar iyo nin weyn loo kala socnayn ee loo wada noqday dalka ciidan dhimasho badan baa ka dhacday wax badan baa nagaga dhintay waxba alla nagu sababay oo nagu dhintay cid alla iyo cidii wax gaarayna waxaan u dhignay gogol nabadeed garawsho iyo gashigoodii baa hursin waxa naga maqnaada ilaahay sabirkiisa ka qaadan magaaladani waxa ay joojinta dhuxusha tusaale uga noqon kartaa gobollo badan oo Soomaaliya ah bulshada degmada Dhaharna waxa uu degan xeerar lagu fuliyo cidii ku xadgudubta deegaanka qofkii lagu arko soo dhuxushay oo qofkaas dhuxul bushay geedkaas u gooyay markuu war $200 baa keenay in laga qaado ganax mar labaadka waa 600 iyo 6 bilood xariga mar saddexaadka waa la dhicinaya oo ilaa 2 sano ugu yar inta la xiro iyo $200 oo laga qaado lacag ganax waa soo socday Ali waxa uu leeyahay shirkad magaalada Fiiqa ka qaada oo waxa uu shaqo abuur u sameeyay 15 qof oo 11 ka mid ah haween yihiin hodiisu waxa uu wadaa gaarigan oo uu magaalada biyaha ugu dhaasho shaqadiisa maanta iyo tii hore waa laba kala fog bulshada dhexdeeda waaga waxa laga yaabaa oday reer miyiga kayn uu degay inaan 10 nin ku rogo oo qaacdo iyo quucdo karto oo yaa bilaayaha ku dhacdo kan yaana soo agdhadajiyay nabad laakiin hadda markaan ku jiro meelaha waxa ugu xun waa ku daafad moogtay marka la yiraahdo qof marka la caayo waxa la yiraahdaa kaas waa ku daafad weey waxba looma reebin moogtay hadda aniga ku daafad ka shaqeeya marka waxa weeyaan qof ka soo hormar waxa warka ilaahay khayraasi inkastoo isbedel ka muuqdo deegaan aan 13 sano dhuxul laga shidin haddana waxa wali caqabadi ka jirta bacahan aan dhirta looga aaba yeelin oo iyaguna Dhahar iyo guud ahaan Soomaaliyaba xal uga baahan Maxamed Xasan Dhalo degmada Dhahar ee gobolka Sanaag